السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا قلت رسالة يوتيوب كده أول سنة درسي عبدي كسودو هذا يوتيوب شانل كوسب تاي فضلك كوسب تاي يوتيوب شانل سبسكرايب شار فيديو ولا لايك شار أبيض بوم ما سنتاي أوكي ما تفيدو كوسب بنوع أما كنا نسوي ذو كذا بوم ولا واحد دايف فيديو يا شا لقى هلا يو وحيابان معلومة يوتيوب كده حصودا راش ما كسب بحني أما كان واحد كذا فيديو أي سو صارين سمرتان تشو معنا بيج برو يو أو كي قلدن مدرسة مسحوف كلام كنا نسا marka balhan wada taawano aanu qof qalday oo malanayo oo waxaan idin wadnaa barnaamij ah kulli idinka laftiinu laga yaabo inaad ku wada wareersantiin annaguna aanu ku wareersanahay sababta ugu wareersantii waxa weeyaan dadku mar rabaan inay run idin sheegaan ma fahanteen kala sababta sidoo kale bal baan rabnaa inaan ka hadalno ma aha reaction laakiin waan ka hadlaynaa bal barnaamijka iyo ma garanaysaa wuxuu yahay barnaamijka big bro hadii aan ku bilaabo gabadh youtuberada oo baryahan dambe aynu ku daba arki jirnay dirisla ku arki jirnay si fiican runba wanaagsan markii hore ma garanayn sax laakiin waxaan bartay markii aan dirisla ku arko isla socdin ha kala ma wadiga qofka runug soo gaarsiiya aan ka dhigo waxa lagu ma santahay muhiim ay markaas baan bartay okay markaas darteed waxa jirtay xan ah in xiriir uu ka dhaxeeyo sida ma garanaysaa adiga naatu laftirkeeda afkeeda ka qaratay oo ah inay diris leh ha isguursan rabaan fiidiyogaas wuxuu ahaa fiidiyo aad u qadar boqol u qadaray fiidiyogaasi youtube kala soo dhigay minahayn ba fiidiyoga راح كذا كلام عنهم كذا ما كان يتوقع عنهم في يوم سمعناه gabadhii sidaa ahayd ba haddana waxaa soo sheegay inkastoo iyada afkeeda ayna ka haynin sidoo kale CK baa wuxuu sheegay inuu xiriir ka dhaxeeyo haddaba waayee gabadhu maxay ay ragga waxaan faahfaahsan karnaa sax laakiin ana faahfaahsinaya aniga iyo gabadhaas xidhiid naba dhaxmay malaha afro istaan shan shakliya taysan joogniba xidhiidna dhaxmari ma jiro okay ayaa xiriir kala dhaxeeya miyay isku haystaan oo macnaha dagaal gabadhaas miyaa jira oo hadda macnaha qarxi raba mise wixii waa branki Allah horaan idin sheegay ama hees baa soo saaraya oo heestaas la promote gareynaya ama qof baa la rabaa in uu subscribe badan helo oo macnaha youtube ka si fiican loo soo dhaxgeliyay ma fahanteen labada mid baa jirta dee anu dawakhay walaal horta tan maraki ma ahan run ahaantii dadka dhan way wada ogyihiin gabadhan naajo caraale la yiraahdo iyo CK wax oo maartay oo ka dhaxeeya aan dhihi karo malaha ninka CK la yiraahdo degdegin dee waxa laga yaabaa inuu wax isku ogyahay maya ninka CK la yiraahdo warniyo rag waa xifaaltamaan adiga qof maartay waa la xifaaltamay kartaa ma fahantay laakiin reer dadow inaad soo gishid mase aad dumisid adiga oo haddana wax og yaa reer ade dee CK wuxuu og yahay berigii intuu joogay Nairobi joogay labadan qof isla socday big bro yara qaldan yahay waxaas waa brand xiriir ma yeelan baanu okay all the asuga naajo wax degan tahay Norway degan tahay Oslo degan tahay all the way from Oslo waxay imaatay meeshan reason ka ugu maxay tahay ninkan ugu imaatay maxay tahay reason ka ugu imaatay kulli fiidiyoga ku faantay ma hore ma garanaysaa marka soo timid fiidiyoga herayaan ku sharaxay baday waxay okay mida ku sheego sax idageyso hay yani waxa weyn hadda reer battery moogtahay ha markii xiriir meesha uu jiro waa caadi macnaha qof hadda maanta aan xiriir aan la leeyahay sax de qofkii hadii aan kala harnaado xiriir wada sameyn kartaa kala haris laakiin ugu war gabar xiriir la futii kartaa ku oran kartaa waxaan rabaa inaan xiriir kula yeesho dhib ma lahan malaada dawladda sameyn kartaa taa ikhtiyaar badan garanaysaa gabar xiriir leh oo ku ogtahay inuu xiriir leeyahay ee futii kartaa ku oran kartaa ninkan ma aragti wallahi kuma qalmaana ku qalma taas dhib ma lahan laakiin muhiimadda meesha taala ah Drizzly yuu xiriir la sameeyay Drizzly in xiriir la sameeyay saaxiibtinimada iyo raganimada waxay ku jirtaa haddii aad og tahay qof hebel inuu la socdo hadduu og yahay CK uu og yahay
inuu maartay ninkana waa saaxiibkiis Idrisle dee walaal Idrisle haa laakiin haddaad dakhrintid Ya. garanaysid dee youtuber kale saaxiib ah dakhrka waxaas ma yaqaano ma yaqaan miya Ha. laakiin aniga shakhsiyadeyda markaan ka hadlo Waa isku dakhrin aniga fiican. wallahi wax walba dhaco yar nin aan saaxiibana naag uu la socday maartay hataa saaxiibtinimada waxay tahay youtuber ma isla yihiin YouTube okay YouTuber isliin Soomaa YouTuber ma dhacday gabar waliba in intay soo safarto wadan kale ka imaato Australia imaato ma dhacday waligeed idhageyso gabar Ma dhicin. saaxiibkaa furay meenad guud dad way jiraan isku yimaadaan anaa waxaan ka fikiraya waan fahansanaya anugu laakiin se sababta u timid ma xiriir iyo waxa mise karin ya gabar saaxiibkaa furay wallahi damarkaas ma lihi aniga aad ma xiriir baad ka sheekaynaysaa way adag tahay taas oo kale inay dee nagadaa waa caadi waxan way dhacday ama okay hadda adiga waxaan adiga aqoonsan si kee u danaanaysa ma adiga ma uma dareenayo Ya. ma uma daraanin si kee boqolkiiba boqol uu qaldan yahay walaalow anu laakiin waxaan taageersanahay qalkiis ha qaato ha anu walba xiriirkii dambeeya anu uma malaynaya inuu qof qaldan yahay ma garanaysaa laakiin waxaan u malaynayaa in si qaldan wax loo isticmaalayo laakiin anu inuu qof qaldan yahay uma malaynayo qof walba wuu saxsan yahay malaa qofka dad xiriir la samaysay dhimalaa dad iskuursatin dhimalahan hadda waxa weeyaan xiriirkan waxaan anigu aaminsanahay inuu jiro kaa hore hadda baryahan dawma arkin Sax. laakiin hadda kanaa cusub samaa okay cadeemaan ku haya ya cadeemaan ku haya Haye. oo naajo caraale youtube-keeda kusoo qortay jecel dhaxal galay wax dhaama lawaa jacaylkii egas ma la dhihi karaa ya jacaylkii egas x exade ma yahde qabyo ninkeeda dhamaystirto ninkana soo watay ninka maartay war anu cidna ma soo wadan cidna xiriir lama samayn cidnana ma rabaanu waa maxay soo watay waxaan uga sheekaynay ninkani war may abti anu gabadh aan jecelahay oo isleeyahay maanta ood jeceshahay ma jirto ilaahay ba garanaya ma doonta in kale laakiin gabadhna ma jecla anu gabadh xiriir lama lihi gabadh ma jeceli haddii gabadh lay waa arkay taa macnidu maaha inaan gabadh xiriir lahayn dadku se wuxuu fahmayaan horta anu xiriir gabadhaan lama lahayn Idrisla soo wareesha hawsha Idrisla loo dhaafo xifaaltan meel kale laga wado laakiin reeraha iyo naaga waxaas in laga soo gal qofka bilaadanka ma yaaqay dadka qaar waxay rabaan arrintan ka dhigaan laba nin oo gabadh isku diraray waxa uu ka sharaf weynay abta anu ka sharaf weynay dadka kale ma garan karo anu waa ka sharaf weynay intaasoo gabdhood baa adduunka jira intaasoo milyan baa jira oo jeclaan karo oo imikadan bay jecel imikadan laga yaabaa gabadhi daawanaysa inay jeceshahay marka in arrintan ay dadka qaar ka dhigaan maaha in ay laba qof gabadh isku dirayaan waxa uu ka sharaf weynaa waraa wadna caayisiin anaga niyo wallahi billahi wada caayisiin wallahi say doonto baa noqoto anu ragga gabdhaha ku dilay ma yihi manaha anigu intaan dhaqaaqo nin gabadh kuma qabsan karo sababtaa sharciga ani ii yaala diris lahaan baan ka hadlayaa ayaan taadhigaynbaba waan ka sharaf weynay anu waxaas haye haye bal cadayntan tusaashay waa kana okay ila daawada labadooda siday maarta ciyaarta iskula keenayaan iyo guriga la joogo guriga hadda la joogo hotel ma ah meel banaana ma aha waa guriga Idrisle la joogay dhageyso haye dhageyso fiidiyoogun waa tiktok laba qofna tiktok isa samayn karaan walal waa caadi music waa la iska daaran karaa waa la iska wada ciyaari karaa ya okay wax kale ku tusaa marka muuqaalkan Wax kale oo ku qancay muuqaalka tusaa. mujida Yeah. muuqaalka koodii waxaan imika dhageyso kale waa iska tiktok okay dhageyso adigoo boqol Koodii. qof tiktok la duubtay adigoo guriga joogay maya waana dooba sax waay laakiin koodii ninkan oo Idrisle wejigiisa ma arkaysi wax naqsanaa laakiin gabadha heesay u shiday way ciyaarsiisay Dirisle ciyaarsiisay Dirisle ciyaarsiisay kulaha ninkan استغفر تقولي وعي عرسيسي والله حبيبي والله لا مي وتيك توك هسنا وهاس حبشي مقلبس وغاغا توخص سو كلا ويان marka akshimaad lagu sameeyay ayaa waxyaabaha soo kala ma garan sabana in qofku say yiraahdo ama inuu saa yiraahdo marka action kuma sameeyni ma wax kale isla markii uu fufuray mifan okay haye kan fiir muuqaalka ila fiir adiga awil geed buu hamiya muuqaalka ila fiir hamar ها أنا يدرس له إسقور سرنا haye afkeena ma ka dhahday ani iyo Idrisle waan isguursanaa laakiin waa iskuursanayna meedhi ama hadda fiidiyowga xagga baa ku dhammaynayaa fiidiyowgaasi
saan hore idinku sheegayba video qaldan buu ahaa aniyo Najwa isla hadalnay waxaan ku waa qaal videogaas uu qaldanaa aan YouTube soo dhigtay waxay ku tiri okay hadduu qaldanaa waa qaal imika YouTube-ka ma ka saaraa markaasaan ku iimayday malahan hadda YouTube-ka mar soo gelisay oo dad badan ku daawadeen ka saarnay iska daa magarateen iyaduna way ogeyd inuu videogaas qalad ahaa aniguna ma sheegay inuu videogaas qalad ahaa sababtoo ade iyada oo la leeyahay Drisley gabadhaasi wisa sodaan xil ba ka dhaxaya ayay iyadu albaabadii u sii furtay oo dhahday in isguursanna baga videogaas uu qaldanaa waan ka wada hadalnay arinta waan dhameynay ma garanaysaa marka videogaas qalad buu ahaa videoga xagaa ku dhameynaya aad buu ma sidii daawashay video daawateen